inta dhimanna aan uga rajaynayo inuu sidaa isi ka fiican noogu dhammaystiro kulligeen. waxaan leeyahay eebba waa mahaddaa, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. tan labaad, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir iyo kan magaalada muqdisho oo aan si gaara markasta rabo mudane guddoomiye inaan ugu xuso guddoomiye jawaahir baarqab, guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir. dhammaantiin waxaan idinkaga mahadsanidin. dhammaantiin waxaan idinkaga mahad celinayaa boorkan dhabarkayga ku yaala soo dhoweynta orodyahankii caanka ah, orodyahanka way taagan tahay hore ee Soomaaliyeed Cabdi Bile Cabdi oo caawa guriga dowladda hoose ee Muqdisho gobolka banaadir oo casho sharaftan ugu sameeyay guddoomiyaha gobolka banaadir. dhammaanteenna aan ka soo wada qayb galnay. marka caawa goobta waxaa iska leh guddoomiye Yariisow iyo halyeey Cabdi Bile Cabdi. saas daraaddeed baan u codsaday inaan anigu soo hormaro borotokoolkana aan dib u dhigto caawa. wasiirada fadhiya na waxaan rabaa inay la qaataan, xildhibaanada golaha shacabka iyo sanatarada kale na ay qaataan taasoo kale. dhammaan martida kale ee saraakiisha ciidamada iyo ururada bulshada qaybahooda kala duwan ee saxaafadda, dhammaantiinna aan saas caawa aan ka dhigno habeenkii guddoomiye Yariisow iyo halyeey Cabdi Bile Cabdi. fanaaniinta waa mahadsantihiin. waxaan rabaa ayagana si gaar inaan ugu mahad celiyo fanaaniinta gobolka banaadir iyo alfanaana kabiira Faaduma Cali Nakruma iyo xubnaha kale ee fanaaniinta qaranka ka jooga munaasabadan. heesihii damiirka wadaniga wax ka bedelayay ee halkan uga soo gudbiyeen inta goobtan fadhida ama inta kale ee muuqaal aragga ka daawanaysa haddii allaha uga dala ogolaado. waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo malaha dadka naga maqan waa war moogyihiin. mararka qaarkoodna waxaanba isdhahaa kuwa dhinacaaga taagaanba war haynin laftirkooda, ma garanayo meeshay maskaxdooda ku maqanta, ma garanayo inay ayagoo taagan iska maqan yihiin iyo inay laba qalbi leeyihiin, iyada laftirkeeda shaki ku jira. laakiin waxaan rabaa inaan si waadaxa u sheego imaashaha Cabdi Bile Cabdi ee Muqdisho iyo waxa aan ku doorannay inaan imaan noo yimaado. kow, Cabdi Bile Cabdi waa ardaygii keliya ee helay bourse studio waxbarasho deeq waxbarasho dalka dibaddiisa, gartay ee gaarsiiyey qarankiisa inuu magac u soo hooyo oo uu ugu bedelo abaalkii loo galay. taasaa kartidiisa mahadsanidin. aada mahadsantiin. taasaa ilaahay ugu galladay kartidiisii iyo dadaalkiisii inuu dalkiisa u soo hooyo magac adduunka uga soo hooyo oo uusan qaarad uga soo hooynin oo uu ugu soo hooyo caalamka. way jiraan cayaaryahano Soomaaliyeed oo magac leh, intii dhimatay Allah u naxariisto, inta nool waxaan siis weydiin leh magaca qaranka Soomaaliyeed inta dalkan wax u soo gelisay
ma jiraan waxay ku cayaaraan magacyo kale laakiin waa Soomaali shaki kuma jiro laakiin cabdi wuxuu dheer yahay waa ciyaartooyga bilad dahaba qarankiisa magaciisa Soomaalinimadiisa ku keenay dalkiisa isagoo arday ah maalinta waa yaraa ma iraahdaa dambiga ma soo gaaray kulli waxaan dhageysanayay maanta waxa loo qaaday marka la soo galay haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo waana lama huraan ee hagarlii wax ugu qabo waa tusaale wanaagsan cabdi hagarlii buu dalkiisa ugu qabtay kuwa hadda dhex jooga ha ugu qabteen kuwa maqanay kale cabdi ha ku daydeen isagoo intaa ka da'yar ka garasho yar ayuu u qabtay laakiin waxaan soo xasuustay markaa heestaa maqlay heestii lagu soo dhaweeyay markii uu bileeda dahabka dalkiisa keenay idaacadda raadiyo muqdisho midha taariikhdaas haddii dib loogu noqdo waa laga helayaa halyeyga dalkiisa dadkiisa horu kaca la doonayo halyeyga dalkiisa dadkiisa horu kaca la doonayo aniga intaasaa miri ugu dambeysay maalinta raadiyo muqdisho ka maqlay imaashiya cabdi tahliil marka kulligeen howl kama daalayaal weli waa hoogadii imaashiisa muqdisho markaan ku xijiyo annaga ka wasaarad ahaan dhalinyaro iyo sport haddaan nahay heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir waxaa ku wada shaqaynaa arrimaha dhalinyarada isboortiga kow ka soo bilow aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku aadan horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga mahadsanidin taas ayaa lagu saleeyay barnaamijka xukuumadda nabad iyo nolol ee ra'iisul wasaare xasan cali khayre golaha shacabka jamhuuriyaddana kalsoonida ku siiyay barnaamijkaas ayaa qorshe howleedka wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee aan wasiirkeeda ahay ayaan ku shaqeeyaa oo aan ka leexleexad lahayn inta maqanna ha ogaato inta joogtana si fiican ha u fahamto waxaa ku xiga 4 bishii abriil oo maanta 6 ayaan xilka la wareegnay maalintii 5 ahaydna waa diyaar garownay 6 ayaa munaasabadtan maanta ah oo ka kooban aan qabanay intaa wixii ka dambeysay kulankii ugu horeeyay 7 bishii May ayaan wasiirada dowlad goboleedyada muqdisho ku yeelanay laga bilaabo maalintaas waxaa naga dhaxaysa wada shaqayn joogto ah wada shaqayn iyo isla socod gobolka banaadir wasaaradda iyo wasaaradaha kale ee heer federaal waayo waxaan u nahay annaga ka dowlad ahaan dhammaan dhalinyarada raaskamboni ilaa lowyacadde ayaan wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga u ahay waan ku qasbanahay markaa cid alle ciddii mas-uuliyaddaas hayso inaan la fariisto la shaqeeyo waxa ay qabanayaanna aan wada kor joogtayno ognahayna magaca qaranka Soomaaliyeedna wax walba haddii dhinac kale u leexsanaayeen loo soo leexiyo waxaan dhammaanteen wasaaradaha iyo gobolka banaadir sharaf naga mudan odayaasha isboortiga Soomaaliyeed taariikhda ku lahaa oo dalka dibadiisa joogay ayaa ayagoo halkan jooga jidka aan ka qabsaday oo in ay naga gacan siiyaan howlahan odayaasha isboortiga Soomaaliyeed tartankii cayaaraha gobolada suurtagal nooma noqdeen haddaysan noqonin guddigii abiilka oo aysan ayagu goobta fadhinin hadda waxaan ka xusi karaa intii dalka gudihiisa joogto waa joogtaa inta maqan waa dadka aan sheegayo waa dadkii taariikhda isboortiga Soomaaliyeed kontameeyadii Khadiijo ma dhalan markaa madaxda ka ahaa waa dadkii 60meeyadii ka ahaa waa dadkii 70meeyadii ka ahaa waa dadkii 80meeyadii ka ahaa waa dadkii 90meeyadii ka ahaa qaranka burburay waxaan rabaa marka imaashiya cabdi halkan yimid ayaga iyo aniga qorshayaashii noo yaalay kulankan wasiirada ay hadda joogaan
waa kulankeenii tobnaad laga soo bilaabo waxaan leenahay wada shaqayn qorshayaal ku salaysan oo marba aan waxa aan qabanayno aan naqaano taasana lagula shaqeeyaa hadday tahay ururada dhalinyarada madaxa bannaan iyo haddii ay yihiin odayaashii hore ee isboortiga sidaas daraaddeed waxaan rabaa inta aanan sheegin imaashaha cabdi wasiirada dowlad goboleedyada inay mid halkan noogu soo istaagaan ayagoo garab jooga ayaana sheegi doonaa wasiirka koonfur galbeed wasiirka jubbaland wasiirka galmudug wasiirka hirshabeelle iyo DG-ga siihayaha kusimaha wasiirka puntland mudanayaal garabkan soo saaran